Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Wadani Podcast. Waxaan idin furaya anigoo ah Abwaan Saki. Waa barnaamijkaygii qofba meel ayay u maraysaa aan u guda galno. Klibkan ayaa noo haya wiilka klibkan soo duubay qabiilkiisa. Waxa la ii soo diro. Aan u guda galno. haddii maxay tahay nothing works there directly halkan ay By the way, qof wiil honesty u eg yahay because qofka waxaad ka fahmi kartaa siduu u hadlayo. ka baxayaan Ethiopia ma halka toos uga galayaan waana mustaqbal wareegaya oo directly waa meesha kaliya Ethiopia ka neefsan karto bad toosan ay ka heli karto ilaa mustaqbalkana ay iyadu yeelan karto waayo markii horeba xuduudeeda ayay u dhaweyd oo meel aad ugu habboon bay ahayd marka haddii aad laga fiirsan waayo tani waxaa khasab noqon doonta in Ethiopia xataa cashuuri doonto waxyaabaha Soomaalidu ay kala soo degayso wadamada Carabaha ee xagga ka xiga waayo 20 kilomitir wuxuu isku bedeli doonaa 150 mayl ayuu isku bedeli doonaa sidaas ayayna ku dhammaan doontaa 150 mayl ayay isku bedeli doontaa because balac horob because badda Soomaaliya intay xaqa u leedahay bay helayaan marka babal mabdabka ama jidka Suez iyo magaranaysaa badda cas isku xira oo ah adduunka maraakiibtooda ugu badan meesha ay marto ayay fadhiisanayaan lagana yaabaa dee Soomaaliya oo dhan canshuurtii soo geli lahayd iyo dee meesha wadada la marayo inay Ethiopia jeebkeeda u geli doonto kaba sii darane ay xitaa canshuuri doonto ay Soomaalida xitaa lacag ka qaadan doonto because baddeydii baa la marayaa bay ku odhanaysaa because 150 maalna saasay u tahay ka fiirsan u kaadi waayo markii horeba xuduudeeda ayay u dhaweyd oo meel aad ugu habboon bay ahayd marka haddii aad laga fiirsan waayo tani waxaa khasab noqon doonta in Ethiopia xataa cashuuri doonto waxyaabaha Soomaalidu ay kala soo degayso wadamada Carabaha ee xagga ka xiga waayo 20 kilomitir wuxuu isku bedeli doonaa 150 mayl ayuu isku bedeli doonaa 150 mayl ayay isku bedeli doonaa oo sidaas taasina waxay siinaysaa inay access u helaan kalluumaysiga inay access u helaan bad inay access u helaan inay ku wadada kaa xidhaan inay access u helaan in aad iyaga weydiisato permission inay waxa baddaada soo galaya ay weliba cashuuraan in ay dadkaaga inayba meeshaan la wareegaan oo xitaa ay isku dayaan xaduudka inay sii fogeeyaan oo yiraahdaan hadday xitaa dadka caqalada ay keenaan ay yiraahdaan dadka caqalad bay keenayaan qarayaan wiilka siduu ku tilmaamayay waxyaalo fara badan ayaa kala soo gudboonaan karaa badda wax badan baa xitaa uga faa'iidaysan karnaa fishing oo kale aan uga faa'iidaysan karnaa malkeena waa may marba wadaad yar baa iska qaadanaya oo shacalka u saaran tahay dad emotional ayaana hagaya meel walba Soomaalida ha ahaato ha noqoto magaranaysaa Puntland ha noqoto Somaliland ha noqoto Muqdisho everybody waa emotional isaga hadduu ka waayay wuxuu rabay waxba kama gelin dadka kale ee meesha jooga wuxuu caqladayn kara caqladaynayaa wuxuu siduu lacag ku heli kara ayuu samaynayaa waa wax siyaasiyiinta Soomaalida oo dhan ay ka midaysan tahay shacabka Soomaaliyeedna u baahan yihiin xeradan ay ku jiraan inay ka soo baxaan oo ay fekeraan yes wax dad ma ka dhinteen 1988 yes waa dhinteen lama soo celin karo yes ma qaxday oo lugaha dhuudhu ma ka gash way dhacday waxba lagama qaban karo yes in ceelasha biyo sun ma lagugu shubay ceelasha ma lagugu riday yes way dhacday waxba lagama qaban karo waxyaalooyin fara badan baa dhacay waxaynu u baahannahay waxyaalooyinkaas dhacaya ee soo laalaabanaya ee constantly la soo celcelinaya siyaasiyiinta Soomaalida ay isticmaalayaan si ay ku fushadaan danaha ay iyaga qaas iyan u leeyihiin waynana aqli ka yeelanaa klibkan kalena tusayaa qofka meel bay u maraysaa halka ay qaar kalena halkan u marayso
waa madaxweyne muuse biixi aan dhegaysano dhulka Soomaaliland lama iibin karo madaxweyne ma iibin karo lamana iibin karo waddanka markaas waa ka cadayda malaha kuwa sidaanay haddii loo dhiibayaa iibin lahaaba ula tahay hawada marihi madaxweynuhu malaha ka soo socdaana malaha dastuurka Soomaaliland baa xaaraantinimeeyey dalka Soomaaliland in ciyaar dastuurka somaliland baa xaaraamtinimeeyey buu yiri madaxweynuhu intaa halkaasaa lagu yiri oo de waxa weye dastuur buu marayaa laakiin dadkana wada matalayoo dhan waa dadkaynu ognahay caruurtooda guryaha waaweyn uga dhisteen nololahay ku nool yihiin qaar baa hudhala leh qaar baa maqaaxyooyin leh qaar baa lacaga samaystay qaar baa turkiga aadaya qaar baa kenya wax ka dhisanaya waa dad sidaas waa lagugu sheekayn karaa markaa adiga wixii jira moogta laakiin in ay shacabka soomaaliyeed midoobaan waa muhiim intay siyaasiyiintan is haystaan mid walbaba markuu dantiisa meesha kale ka waayo wax uu u turayo malaha clip kanaa noo geenayaa qaybtiisan kale aynu dhegaysana qaybtan kalena qofba meel bay u maraysaa oo loo aarinayo wada Soomaaliland in loo diyaarad taangi iyo boqolaal isoo xilmay oo maxkamada markay ku arteen ayuu noqday amaankii ayda waxa kale laga daray laba iyo saddex sanadood walaalo xaliya war maxay war garinaha ma taqaana iyo tabashir ayaa la galay Ahmed Mohamed Sinan intii uu joogay iyo intii aniga joogayna waxa la galay doob iyo tabashir oo heer madaxtooye by the way shirarkay aadaan ma garanayo wax mowqif ah oo lagu wada heshiin karo meena ka arkin hadda shirkii haddaan arkayna moogti inaanan dadka laisku dirin reconciliation kamay hadlin moogti hadda waxaad arki doontaan weliba clipka kale muuse biixi uu ka hadli doono dadkii dhintay 1988kii iyo taas hadda way ku jirtay laakiin waxaad malaynaysaa in aanay fataad ay ciyaarayaan labadoodaba aanay rabin inuu meesha wax cad oo muuqda ay ka soo baxaan halkaana ka muuqato mar waxaa madaxweyne xasan sheekh shariif shirna waxaa hadda kale hore farmaajo sagaalka kale waxa xigaya madaxweynaha maanta federaalka Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh sanadkii 10 wuxuu ugu heshiiyey caalamka weyn ee qomraha mid kula oo dahab galay ma jiro bal kula ma furin absolutely mara fara badan Somaliland balamo fara badan looga baxay 60gii baan ogeyn waxaan ognahay haddadan aan taaganahay xaadirka nahay waa looga baxay also Soomaaliyana ma rabto wax fara badan inay saxdo oo dee waxyaalo fara badan baan ka arkaynay oo xitaa shacabkii bay hanan kari weyday Soomaaliya laftirkeedu shacabka bay hanan kari weyday waxay ku leedahay qabiil inuu meel fadhiya waxa leeyahay waa cunsuriyaal wax ma ogola social media dad baa lagu soo daadiyay kuwana qaar kale kusoo daadiyeen kuwana qaar kale kusoo daadiyeen by the way waxaan dadkan social media iska wada caynayo dhan haddii aanad qabiilka aad ka tirsantahay ama majeerteen aanad u tumin ama isaaq aanad u tumin sacabada ama hawiye aanad u tumin ama aad waxa ay rabaan ay oo adiga ka madax bannaan ama Soomaalinimo iyo dadnimo iyo dad jacayl ay aad ka hadasho wax xanaaqaya waa lagaa soo tuuraya أنا أقول على روجر قيبتها كلام دعوانا haloo yareeyay waar taale fa cabad hadii kale talaabo laga qaado
راعي مايو أمرك قصبك هرالتي ما ترى وديا كل تشهي لا إله إلا الله